Annabelle Jefferson oo 44 jir ayaa aaminsan in waalidkeedu ay si buuxda mas'uul uga yihiin foolxumadeeda oo horseeda in 3 jeer la furo isla markaasina ay qaado jahawareer iyo dhibaatooyin nafsiyeena waxay sheegtay in labadeeda waalid ay aad u foolxun yihiin oo cadawtinimo ay ahayd inay yeeshaan caruur isla markaasina aanay jirin sabab ay caruur u dhalaanba Jefferson waxay sheegtay in furiinkeedii ugu horeeyay in ninkeedii hore uu sheegay garsoorihii maxkamadda in subax kasta marka uu arko wajigeeda uu dareemi jiray dhibaato xagga maskaxda isla markaasina uu ku ordi jiray suuliga ama musqusha si uu halkaasi isugu qariyo 44 jirkan ayaa qorsheynaysa inay sameeyso urur ay leeyihiin dadka dareemaya dhibaatadeeda mid la mid ah waxaana ay doonaysaa in dacwad ay ku soo ogaan waalidkood Annabelle Jefferson waxay doonaysaa in maxkamaddu ay ku xukunto labadeeda waalid lacag $2 milyan oo magdhow loo siiyo